maanta aan campaign ama ole nadaafadeed aan u qabanay xaafadda Bandar Qaasim anagoo ka howlgalayna ama ujeedada guud iyo siyaasadda ka leedahay degmada Boosaaso anagoo u kurgalayna ba maanta Jimco ah waxaan ka bilownay ololahaas xaafadda Bandar Qaasim ee degmada Boosaaso ololahaas runtii aan ka bilownay 6 subaxnimo anagoo qorsheynay meelo badan dadka ku qanaayeen oo halkan ay koob ka tahay maadaama ay tahay mudnaanta koowaad xeebta magaalada Boosaaso oo runtii lagu talagalay in marka hore loo dabaal yimaado nasiib xumo dadkeenu saas uga faa'iideystaan qashinka keenan inay ka waantoobaan waa jeclaan lahayn wax kale oo aan soo qashinka laga gurayaa abaalmarinta waa helay wada toga ah oo runtii qashin kala duwan oo yaalan waa laga howlgalay xaafadda laftigeeda timamka halwadaag iyo wadajir laftigeeda wixii ka howlgaleen laba saydo beerta gurxan iyo meel leeyaado weyn oo iyada laftii qashinka isku yimaadaan iyada lafteeda inay soo kormeerno noqonayso insha Allah hadii Ilaahay marka siyaasaddan waa siyaasad guud ay degmadu leedahay Ilaahay baan u mahad celinaynaa maanta Jimcaha waxa laga shaqeynayaa xaafadda Bandar Qaasim iyo dhammaan wadooyinka waaweyn magaalada Boosaaso xeebta xaafadda Carab waa program cusub oo hadda la bilaabay oo qorshayaasha hore ka duwan programkaas oo ah in maalinba xaafad laga howlgalo dhammaan afarta xaafadood ee magaalada Boosaaso insha Allah maalin walba waxa laga sameeyaa Jimco kasta waxa laga sameeyaa olole nadaafadeed qorshahaas oo maxaan ku raacday looga hortagayo ama lagu la tacaalayo nadaafadda magaalada Boosaaso magaalada Boosaaso maadaama ay magaalo weyn population badan oo ku nool yahay maxaan ku raacday qashin badan soo saarta saadarteed waxaan la sameeyay qorshayaal cusub oo maxaan ku raacday lagu la tacaalayo qashinka insha Allah gudoomiyaha insha Allah baa maanta noo daafuraya programkaas ama qorshahaas ololaha nadaafadda oo xaafadaha ay u qaybsantahay magaalada Boosaaso laga fulin doono Jimco kasta Allah waxaan rajeynayaa shacabka iyo dawladda iskaashanaysa in arrinta guul weyn laga gaari doono sidaan insha Allah ku soo doonto waxa farxad weyn noo ah inaan maanta si rasmi ah u daafurno barnaamijkii nadaafadda magaalada Boosaaso loogu magac daray runtii qorshahan waa qorshayaashii sanadkan 2021 ee golaha deegaanka degmada Boosaaso ay soo dajiyeen oo ahaa in nadaafadii iyo qaabka hore magaalada loo nadiifin jiray wax laga bedelo waxa la soo go'aamiyay in isbuuc kasta xaafad la nadiifiyo maadaama magaalada 4 xaafadood ay ka kooban tahay fulitaankii ugu horeeyay oo maanta maalintii ugu horeysay waxaanu ka fulinaynaa xaafadda Bandar Qaasim runtii waxa la soo nadiifiyay maanta ilaa iyo 6 goobood oo magaalada ah ugu weyn tahay xeebta oo laga nadiifinayo 2 goobeed wadada weyn oo isku xirta aylaboorka iyo magaalada iyo 3 xarumood oo gudaha magaalada xaafadda ah Bandar Qaasim aad iyo aad baan u bogaadinayaa gudoomiyaha xaafadda iyo agaasinka waaxda arrimaha bulshada iyo dhammaan laamaha ee ka kooban tahay xaafadda Bandar Qaasim sidoo kale waxaan bogaadinayaa dhammaan shacabka ku nool xaafadda tan sida wanaagsan ee uga qayb qaateen barnaamijkan ololaha nadaafadda iyo daafurkan barnaamijkan wuxuu noqon doonaa barnaamij si qoto dheer u sii socda ma aha mid maanta kaliya bilaabanaya wuxuu noqonayaa mid maalin walba oo Jimco ah socon doona hadii Allah wada leeyno waxaanu soo qoondeynay barnaamijkan inuu socdo muddo 3 bilood ah 3 bilood kadib baa waxa la bixin doona abaalmarin afarta xaafadood xaafadda ugu nadiifsan ee lambar 1 ka noqonaysa dhinaca nadaafadda ayaa lagu doorsiin doona hadii Allah wada leeyno 9 maalmood oo soo socda in magaalo nadiif lagu gaaro 100% waa inoo daafuran yahay waxaan rajeynayaa insha Allah taala isbuuca ku xiga ay yeelan doonto xaafadda biyo kulule in iyadana sidaas si lamid ah looga faa'iideysan doono hadii Allah wada leeyno